10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. برنامج كان عصب عن دون إنه كان dadkeena aan ku ansixino waxaan u sameynay dad badan baana waxyaabahan af carabiga aan ku qorno aan fahmayn marka anaga dhibaato nagu haysata af Soomaaliga waa lagu adeeg yahay marka waxaan doonaynaa dadka af Soomaaliga ku hadla inta fikirkayga anagu waxaan ka socdaa waxa la yiraahdo community Somali minorities dadka waxa la yiraahdaa laga tira badan yahay dawladaha Soomaalidu Somaliland aan noqoto Puntland aan noqoto Soomaaliweyn aan noqoto aanay waxba aanay ogoleen inta wasiiriyaan marka barnaamijkan insha Allah من maanta ayaan ka biloobaynaa waxaan ka codsanaynaa inta si fiican maanta waxaan ka hadlaynaa waa dib horta dadka minority-ga haysata meel kasta ay joogaan hadday qurbi joogaan amba hadday Soomaaliya wadanka ay ku yihiin dibta haysata waxa weeyaan horta qofku haddaan dunuubkiisa isagoo aan ku hadlin cid wax qabanaysa ma jirto haddaan isagoo aan u dacwoon cid kasta oo hadasha waxay ay keenayso oo wax qaban karto ma jirto marka dibta ugu horeysa waxa weeyaan dadka minority-gu way badan yihiin laakiin dibta ugu weyn iyaga laftooda gudaha ka haysata mid kasta wuxuu tiraagaraynaya intuu keligii uu wax samaysto laakiin anigu waan la talinayaa waxaan leeyahay nimanka maanta iyagoo aana dawlad aana jirin military leh amba xukunta si fiican meesha xukunta amba dawlad aana ictiraaf sida Somaliland oo kale amba sida Puntland oo kale la federal baan nahay oo federal kaliyoona sayo wax yiraaho isku gacanta Soomaaliga tagay inta isla galaan dadka oo wali waxba helin afarta qabiile kala qaybsatay afarta meelooda Soomaaliya ay maanta ay dib ugu hayaan marka anigu waxaan leeyahay dadka minority-ga baritooda dadkaas oo dawladda helay waxay nagu sameeyaan wax ka weyn bay nagu sameeyaan baritooda iyagoo military leh iyagoo dawlad leh iyagoo cid aan la hadli karin iyagoo waxba haysan baa waxa la yiraahdaa ayaan la hadli karin baritooda iyagoo dawladda noqday oo la ictiraafay amba dawladda Soomaaliya ay gacan kaliya ay wada noqotay oo afarta qabiil ay haysato baritooda waxay dadka minority-gu ay ka rajeeyaan marka anigu waxaan leeyahay dadka minority-ga bal isla yara fariisto gabooyo noqda amba jareer noqda amba qabiilka doonta noqda amba biimaal noqda bal xagga ku socotay marka talada ugu horeysa aan doonayo barnaamijkayga inta ku bilowdo gacan kaliya awara loo wado qabiilada minority-gu meesha joogaan baa isla wada fariistaan qurbo joog hadday joogaan community-yaal samaystaan oo magacooda ku dooda dhalinyartooda cusub ee mutacalimiinta inta qadiyadooda meel kasta ay kaga hadlaan weeyaan qadiyadu ma khusayso oo afar qabiil gabooyo oo la yiraahdo qadiyadu waa qadiyad weyn weeyaan waxa weeyaan dadkeena minority-gu dhan Soomaaliya jooga inta gacan kaliya aan noqon wassalaamu calaykum